saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaargarooba wararkeena waa 9 Julaay sanadka 2022 wararkeena qodobada ugu waaweyn maanta Jimcaha waxaa qayb ka Ra'iisul Wasaare Roble oo ku wajahan magaalada Garbaharre iyo wararkii ugu dambeeyay safarka Roble amaanka Garbaharre oo la adkeeyay Israa'iil ciidamada oo halkaas gaaray maxaa ka jira safarka Garbaharre Ra'iisul Wasaare Roble laga reebay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe xog ku saabsan ayaa idin soo gudbin doona sidee ayuu ku xumaaday xiriirka u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo aad u xumaaday xilli gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu bilaabay inuu la kulmo xubnaha musharaxiinta mucaaradka xogo ku saabsan khilaafka culus ee soo kala dhaxgal Villa Soomaaliya iyo waliba gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Ciro qodobada kale waxaa qayb ka gaari ay saarnayn dad shacab ah oo miina kula qaraxday meel u dhow deegaanka Bacadweyne ee gobolkaasi mudug iyo wararkii ugu dambeeyay waxa kale oo idin soo gudbin doonaa xaaladaha siyaasadeed iyo kulamada maanta oo Jimcaha ka soconaya Muqdisho iyo waxa kale oo qayb ka noqon doona saaxiibayaal maxaad ka ogtahay madaxweynayaasha Afrika ee la toogtay ayagoo xilal ka haya warbixintan qayb ay ka tahay qodobadaas kuba kale muhiim ah in kugu soo gudbin doona qayb ka noqon saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhig gambaleel kana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahina aan ku bilaabase Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ku wajahan magaalada Garbaharre iyadoo amaanka aad loo adkeeyay wararkii ugu dambeeyay safarka Roble ee Garbaharre haddaan soo koobo iyadoo sidoo kale wararka qaarkood aan helin ay sheegeen safarkaasi laga reebay madaxweynaha Jubbaland uusan qayb ka ahayn Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Sagado halkaas oo goobta lagu qabanayo doorashada Soomaaliya sidoo kalena halka mushkilada weyn ka jirto Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Garowe halkaas oo u tagi doona arrimo la xiriira doorashada ka dhacaysa magaaladaas iyo sidii loo xalin lahaa sugidda amniga doorashada Garbaharre waxa maanta lagu wadaa degmada Garbaharre ee in ay gaar ahaan wafdi hordhac u ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kuwaas oo sii diyaarin doona soo dhaweynta wafdiga maanta Jimcaha ayaa kismaayo waxa ka baxay xubno hordhac oo Ra'iisul Wasaaraha wafdigaas u tagi doona magaalada Garbaharre sidoo kale isla maanta magaalada Garbaharre waxa loo daabulo ilaalada gaarka Ra'iisul Wasaaraha sidoo kale halkaas waxa la geeyay gaadiidkan xabadaha karin oo uu adeegsan doono ama uu ku socon doono Ra'iisul Wasaaraha intuu joogo Garbaharre maadaama magaaladaas ay tahay mid amnigeeda aan la isku haleyn karin sida ila wareejo ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha noo xaqiijeen janaalkina Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa magaalada Garbaharre oo gaaro maalinta berri oo Sabti ah sida xogii ugu dambeeyay ay sheegayaan maanta garoonka diyaaradaha Kismaayo waxa ka baxday 3 diyaaradood mid waxay wadi wafdiga hordhac oo Ra'iisul Wasaaraha midna waxa lagu qaaday ciidamada ilaalada gaarka ee gaadiidka xabadaha aan karin oo ina mid kale lagu qaaday Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida Garbaharre uu gaaro halkaas oo kula kulmi doono siyaasiyiinta gobolka Sagado ku sugan kuwaas oo diidan maamulka Axmed Madoobe Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxgaradka siyaasiyiinta Garbaharre kala hadli doona doorka ay leeyihiin dib u heshiisiinta Jubbaland iyo dhameystirkooda hanaanka doorashada Jubbaland gaar ahaan kuraasta deegaano doorashadu ay tahay magaalada Garbaharre ayaa kamid ah goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka Soomaaliya iyadoo haatan ay soconayaan dadaalo ku aadan sidii loo dhameystiri lahaa tabashooyinka ka dhex jira dadka deegaanka ee gobolka Sagado iyo waliba kan maamulka Axmed Madoobe oo laga diidan yahay tagitaanka Roble ee Garbaharre ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay magaaladaasi loo diiday in ay tagaan xildhibaano horle iyo mas'uuliyiin kale oo wada ololo ku aadan inay helaan gudoomiyaha Garbaharre kuwaas oo la doonayay in halkaas ololo ay ka sameeyaan laakiin la sheegay diyaaradooda lagu xanibay magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa isla shalay waxa uu diiday in magaalada Kismaayo ka soo dego diyaaradii sidii la taliyaha farmaajo dhanka doorashooyinka u qaabilsan Cabdi Cali Raage oo la sheegay in uu u tartami doono kursi yaala magaalada Kismaayo caasimada ku meel gaarka ee Jubbaland magaalada Muqdisho waxa lagu celiyay diyaarad saarneed 40 ilaa 50 qof rakaab ah oo ku socdo degmada Garbaharre ee gobolka Sagado kuwaas oo la sheegay in garoonka diyaaradaha dawladdu ay ku celisay lamana oga sababta keentay in dadkaasi la celiyo Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaana maalinta bariya gaari doona Garbaharre waxaas la sheegay safarka Garbaharre Ra'iisul Wasaaraha uu ku tagayo laga reebay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe lama yaqaan sababta looga reebay sababta waxa loo badinayaa inay maadaama halkaas uu san wax taageeraha ka haysan sidoo kale wararka ayaa
sheegayaa in safarka ra-iisul wasaaraha Garbaharre ay ku weelinayaan qaar kamid ah wasiiradii loo xilsaaray arrinta Garbaharre ee wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada. wixii war ay macluumaadyo ay ka soo kordhay arrinta Garbaharre oo idin soo gudbin doonaa. gaari ay saarnaayeen dad shacab ayaa miina kula qaraxday meel u dhow deegaanka Bacadweyne iyadoo tirada dhimashaduna ay sii kordhayso. gaarigan ay saarnaayeen dadka shacabka ayaa miina kula qaraxday meel u dhow deegaanka Bacadweyne gobolka Mudug, halkaas oo maalmihii ugu dambeeyay isku horfadhiyeen ciidamada dowladda iyo al-shabaab. qaraxan oo nooca dhulka lagu aaso meelaha fogfog laga hago iyo kuwa soo boodada ah ayaa qabsaday gaari minibus ama hoomey ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah, wuxuuna ka dhacay meel u dhaxaysa deegaanka Bacadweyne iyo qacid deegaan la yiraahdo. inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof ayaa gaariga saarnaa ayaa dhimatay, sidoo kale 8 qof ayaa dhaawacantay. gaarigana burbur xoogan ayaa soo gaaray goobta qaraxu ka dhacay oo ahayd maalmihii la soo dhaafay meel ay ku dagaalamayeen al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta Galmudug. waxa aagaasi la sheegay in miinooyinka al-shabaab ay ku aasan ay suurto gelisay in ay gaadiidka dadka shacabka ah saaran ay haleeyaan. al-shabaab miinooyinka halkaas badan ay ku aasan waxay doonayaan inay ku bartilmaameysadaan gaadiidka askarta dowladda iyo kuwa Galmudug. ciidamada dowladda ayaa gobolkaasi Mudug ka wada dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la doonayay in gobolkaasi loogu sifeeyo kooxda al-shabaab oo bulooyinkii ugu dambeeyay u muuqata mid xoojisay. ciidamada al-shabaab oo haatan ku sugan deegaanka Bacadweyne ayaa dib ula wareegay kadib markii ciidanka dowladda la sheegay in cabsi awgeed halkaas iskaga soo baxeen. gobolkaasi Mudug inta badan waxaa ka dhaca qaraxyada iyo weerarada joogtada ee al-shabaab halkaas ka geysanayaan. gaarigan caasiga ah ama hoomeyda ah oo saaraa dadka shacabka ayaa noqonaya gaari kale oo al-shabaab ay waxyeello ku gaarsiinayso dadka rayidka. sidee ayuu ku xumaaday xiriirka u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo gudoomiye Cirro oo la siinayo in xiriirkoodu xumaaday ila wareedyo kala duwan oo lagu kalsoon yahay ayaa channelkeena uu sheegay in gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro iyo madaxtooyada Soomaaliya oo khilaaf uu soo kala dhaxgalay. khilaafkaas oo la sheegay inuu saameyn xoogan ku yeeshay arrimaha doorashooyinka. xogtan Helen ayaa tilmaamaysa in Cirro iyo Villa Soomaaliya khilaafkoodu yimid kadib markii guddiga lagu sameeyay baaritaano ay ku dhex arkeen magacyada 16 xubnood kuwaas oo qaarkood la sheegay in mucaaradku ay wateen. Cirro ayaana si lama filaan ah Villa Soomaaliya ay ku dareentay dhaqdhaqaaqiisa oo aad u sareeyo saaxiibtinimo dhowna kala dhaxayso xubnaha mucaaradka. sidoo kale xubno ku dhow madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegayaa in marar badan uu xiriiro la sameeyay Cirro inta baaritaanada ay socdaan uusan ka jawaabin wicitaanka madaxweynaha oo la soo wacay Cirro, kaas oo la soo sheegayo inay keentay in Villa Soomaaliya si weyn kaga shakiyso looguna daro liiska xubnaha mucaaradka. si kastaba Cirro ayaa si lama filaan ah ugu badbaaday xubnaha Villa Soomaaliya rabtay in laga saaro liiska doorashooyinka uu ka soo dhex muuqday. sidoo kale Cirro ayaa si adag lagula dagaalamay doorashadii dhacday guddoonka inkastoo markii dambe uu ku soo baxay. xogtan Helen ayaa tilmaamaysa inta ku dareysan guusha Cirro ee doorashada gudoomiyaha guddiga ay ka dambeysay xubno kamid ah midowga musharaxiinta si gaar ah Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay iyo Xasan Sheekh Maxamuud inay ka dambeeyeen in mar kale Cirro uu ku soo baxo gudoomiyaha guddiga doorashada. inkastoo markii dambe madaxtooyada Soomaaliya ay si dirqi ay ku taageertay kadib markii loogu adkaaday musharaxoodii rabay inay ku soo baxo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Xasan Cali Kheyre iyo xubno kale mucaaradka kamid ah ayaa la sheegay in aad u taageersiin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka FID uu ku soo baxay Maxamed Xasan Cirro oo horey xilkana isaga u hayay laakiin diidmo xoogan laga keenay guddiga isaga waqtigaas hogaaminayay. sidoo kale guushan waxaa la sheegay in door weyn uu ku leeyahay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo wararku sheegayeen in asaga si weyn u taageersan Cirro maadaama musharax yahay. Maxamed Xasan Cirro iyo xubno kale oo kamid ah guddiga ayaa Arbacadii kula la qaatay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo qaar kamid ah musharaxiinta mucaaradka ku jira. dhaqdhaqaaqyadan ayaana kuwa si xoogan Cirro u waday, taasoo la sheegay in ugu dambeyn ay keentay in Villa Soomaaliya ay ka shakiso Cirro. khilaaf weyn ayaana soo kala dhaxgalay Cirro iyo waliba Villa Soomaaliya. ugu dambeyn maxaad ka ogtahay madaxweynayaasha Afrika iyagoo xilalka haya ee la toogtay? warbixintan ayaan ku soo koobi doonaa qaar kamid madaxweynayaasha Afrika. qaaradda Afrika waxaa ku badanaya dilalka madaxweynayaasha
burburka kadib kuwaasoo xilal kala duwan soo qabta waxaana la toogtay madaxweyneyaal xilal haya dalalkooda qaarkoodna waxaa la dilay ayagoo weliba xafiisyadooda shaqada joogaan madaxweyneyaasha la toogtay ayagoo xilalka haya waxaa kamid ah cabdirashiid cali sharmaarke oo Soomaaliya ah cabdirashiid cali sharmaarke oo madaxweynihii labaad ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha dalka intii u dhaxaysay 1960 ilaa 64 waxaana lagu toogtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 15 Oktoobar 1969 dilkiisa kadib waxaa dalka Afgembi adii ku daadan ku qabsaday militariga Soomaaliya kadib uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre 22 Oktoobar 1969 ilaa 26 Julaay waa 26 Janaayo 1999 محمد القذافي مدحونها ليبيا كورنيل القذافي وهو حلك مدحونها ليبيا هي كودي سبتمبر 1969 إلا 10 أكتوبر لابد كون كودي حلكا ayaana asoo haya ayaa awood military lagu qabsaday waana la dilay wuxuuna sababay kacdoonka reer Carbeed oo galaaftay madax badan oo Afrika kamid ah Idris Beba oo madaxweynaha Jad ayaa isna qayb ka ahaa madaxweynihii lixaad ee wadankaas Jad Idris Beba wuxuu xilkan qabsaday xukunka awood military Abriil 2022 ayaa laga tuuray wuuna geeriyooday kadib dagaal ka dhacay gudaha dalkaasi wuxuuna xafiiska joogay 2 December 1990 ilaa 20 Oktoobar 2022 wuxuuna hogaamiyay Jad ugu waqtiga dheer ah ee la dilay Sheikh Abeid Amaan oo ah Zinkabur hogaamiyaha wadankaas ayaa isna la dilay soo xilka haya Sheikh Abaad waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Zinkabur iyo ku xigeenkiisa talkaasi waxaana la toogtay dhismaha xarunta dhexdeedaas inta u dhaxaysay 7 Abriil 1972 iyo xilka qabsaday laakiin goordhow ayaana la toogtay waxa kaloo ku xigay hogaamiyaha DR Congo ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa isna la toogtay soo xafiiskiisa shaqada ku jira waxaana la toogtay san 18 Janaayo 2001 waxa kaloo qayb ka hogaamiyaasha Afrika ayagoo xilalka haya la toogtay hogaamiyaal badan oo ay ku jiraan wadanka Guinea Bissau iyo wadanka la yiraahdo Ivory Coast iyo wadamo kale oo Afrika oo Nigeria qayb ka ah warbixintan ayaan ku soo koobaynaa wararkeena saaxiibayaal nabadgelyo